digniin muuqaalkani waxa uu ka kooban yahay muuqaalo murugo leh. kani waa aabbahay magaciisu waa Axmed Maxamed Lubaad wuxuu ku dhintay dhagxaanta hoostiisa hooyaday ayaa ag joogtay iyada iyo walaashay iga yar inkastoo ay iyadu u dhaxaysay haddana waxba kuma dhicin. Cumar oo 13 jir ah una dhashay Gaza ayaa ku waayay labadiisii waalid weerarka duqaymaha ee Israa'iil. Hadda isaga iyo 5 walaalihiis ah waa agoon. Burburkani waa waxa ka soo haray gurigoodii. Cumar waxa uu isku soo dayay in burburkani dhexdiisa uu qodo si uu u badbaadiyo waalidkiisa. Waxa uu og yahay in weligeed aysan wax walba sidooda ku soo laaban doonin. aabbahay bannaanka ayuu noo saari jiray si uu noo tuso meelaha. hooyaday waxa ay qori jirtay oo ay daabici jirtay farshaxanka waxay ahayd fanaanad. waxaan aadi jirnay goobaha biyaha ee dabaasha aad ayaana u wada faraxsanaan jirnay. Carruurta ayaa sidoo kale waaya iyadood iyo 2 eedo. Hadda waxaa daryeela adeerkood isaguna waa guri la'aan. Cumar ayaa sheegay in uu dareemayo kalinimo uuna aad u tabayo waalidkiisa. marka aan ku socdo waddada ama meel kasta waxaan ka fakaraa iyaga oo aan soo xasuustaa. waxaan jeclaan lahaa inay weli nool yihiin oo aan mar kale qoys noqon karno laakiin way dhammaatay waana kala tagnay.